ganacsatada Soomaalida ay dukaamada ku leh xaafadda Kraafootin ee hoostimada magaalada Cape Town ayaa raashin u qaybiyay dadka masaakiinta ah ee u dhashay wadanka Koonfur Afrika isla markaana ku nool xaafadaha ay ku ganacsadaan iyaga oo kala qayb qaadanaya dabaaldega maalinta uu dhashay madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika oo iminka 95 sano jirsaday asagoo ku jira isbitaal ku yaala caasimadda Koonfur Afrika. dadka raashinka loo qaybiyay ayaa waxay ahaayeen dad laga soo dhaxulay xaafadaha kuwaas oo isugu jira cuuryaamo iyo dad ah oo qaarkood ay sariir saaran yihiin waxaana qofkiiba la siiyay 10 kiilo oo isugu jira bur bariis iyo borage ayadoo munaasabad kooban oo raashinka lagu wareejinayna lagu qabtay xarunta degmadaasi waxaana goobjoog ka ah duqa magaaladaasi oo lagu magacaabo Simbiwe Nikziwi iyo marti kale oo isugu jiray ganacsato Soomaaliya iyo kuwa community-ga xaafadda ka socda. ugu horreynna gudoomiyaha degmadaasi iyo gudoomiyaha ganacsatada Soomaalida ayaa goobta ka hadlay waxayna sheegeen in hawshani ay tahay mid bilow ah oo farxad gelinaysa dadka deegaanka isla markaana abuuri karta jawi isfahan iyo wada shaqeyn dhex marta labada bulsho. izipozabo savumelana bazokwenziwa ngohlobo annagana waa ku faraxnay waana tixgelinaan ku siinay inay waqtigan yimaadaan oo annagana aan la taagnaan oo meesha dadkii aan ku wargelino bona kwezinto abaziqokelela ezivenkileni zabo bazopha abantu abagogeke ngokwempilo ayaga waxay dukaamagooda ka soo aruuriyeen oo ay isu keeneen ayay meeshaan dadkiina ay ku caawinayaan. sivumelene ke kulonto sacela imibutho esebenza apha ekuhlaleni isebenza ngabantu abagogekileyo ngezempilo. umbutho esebenze nawo ke bengu-caring network. annagana waa ku faraxsannahay qaabka ay hadda u shaqaynayaan saasaan idinkugu wacnay waxaan rabaa in idinkana dadkan haddii la furan yahay kalar black people aan isku nahay oo masaakiinta oo walaalaheenna inaan caawino ayaa halka u nimid iyaguna ay naga caawiyaan waxyaabaha lagu soo xadgudbaya wuti loo buuti tina seetanda lendele wuti masincedane because ubandi yakunceda nawe uvumelele unceda nam siyasincedana and then wuti sishala sonke apha. marka laga soo tagay dadkani la siiyay raashin isla markaana lagala qayb qaatay munaasabadda dabaaldega maalinta Mandela ayaa haddana waxa tani ay muujinaysaa sida bulshada isugu soo dhawaanayso isla markaana ay u baahan tahay in isdhexgal dhanka bulshada si loo yareeyo dhibaatooyinka loo geysto dadka ajaanibta ay ku nool xaafadaasi iyadoo ay xusid mudan tahay in xaafadani bishii May ee sanadkan lagu boobay ilaa 200 oo dukaamo Soomaali ah. Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Cape Town wadanka South Africa.